Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta qiimaha badan kusoo dhawaada muuqaal qiimo badan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkani, subscribe noo saar, muuqaalkana like saar. Qaybta hoose comments-kana wixii fikriya faala iyo dhiirigelinba inoogu reeb. Mahadsanid. Maanta waxaa mawduuceena ooga hadli doonaa xaqiiqooyin ku saabsan aaladda TikTok iyo waxyaabo badan aadan ka ogeyn. Adeega TikTok waxaa iska leh shirkadda lagu magacaabo ByteDance. ByteDance waxaa la aasaasay 2012 waxaana lagu aasaasay gudaha dalka China, waxaana iska leh milkiile u dhashay dalka China. 70% aaladda TikTok dadka isticmaala waxay da'doodu u dhaxaysaa 16 ilaa 24 sano, taas oo ka dhigan 30% ay da'doodu tahay 25 sano iyo wixii ka koreeya. Haddii aan la barbar dhigno apps-ka loo yaqaano Facebook, ujeedadii u horeysay ee Mark Zuckerberg waxay ahayd inuu isku xiro ardayda. Sidaa darteed, isticmaalayaashii ugu horeeyay waxay ahaayeen dhalinyaro, kuwaa oo ku riyaaqsan apps-kan. Sanado kadib, waxaa dhacday in dhalinyaradu ay dhibsadaan apps-kan, taa oo ugu wacan in waalidiintooda xitaa awoowayaashooda ay bilaabeen in ay isticmaalaan apps-kan. Sanado kadib, waxaa soo baxay apps-ka loo yaqaano Instagram, taa oo dhalinyaradu badanaa ay u riyaaqeen isla markaana xagga ay aadeen maadaama xaggan ay ku badan yihiin waalidiintooda iyo xitaa awoowayaashooda. Taasina waa wax caadi ah. Aalad kastoo cusub waxaa ku horeeya dhalinta, isla markaana waalidiinta ayay baraan. Sanado kadib, waxaa macquul ah inay waalidiintu ku soo bataan aaladda TikTok. Xaqiiqada kale cajiibka ayaa waxay tahay apps-kan TikTok 1.5 bilyan oo jeer ayaa laga degsaday App Store-ka iyo Play Store-kaba. Bishii November 2019, Sensor Tower ayaa soo warisay in apps-kan uu gaaray 1.5 bilyan oo degsi ah, isla markaana cajiib ku noqotay adduunweynaha maadaama apps-kan gabi ahaantiisaba la aasaasay 2016. Muddada yarna uu ku gaaray 1.5 bilyan oo degsi ah. Xaqiiqo kale ayaa waxay leedahay TikTokers-ka ugu badan waxay ka soo jeedaan qaaradda Aasiya, inta ugu badanna waxay ka soo jeedaan dalka China iyo India. Waxaa la tilmaamaa in 150 milyan isticmaalayaasha maalin kasta online-ka ah ay ku nool yihiin dalka China, halka in ka badan 30 milyan oo ku nool Amerika ay si joogto ah u isticmaalaan app-kan. Markii loo eegana saameynta waqtiga, celcelis ahaan isticmaalayaasha adeega TikTok ayaa maalin walba ugu yaraan 52 minid oo waqtigooda ka mid ah ku bixiya isticmaalka adeega, halka Instagram ay tahay 53 minid, Snapchat-kana lagu qiyaaso 49.5 minid, halka Facebook uu yahay habka ugu sareeya ee waqtiga lagu bixiyo ee dunida. Celcelis ahaan qofkiiba maalintii wuxuu ku bixiyaa 58.5 minid. Xaqiiqo kale ayaa waxay leedahay waxaad awood u leedahay inaad app-kan ka samayso lacag, isla markaana markii loo eego Soomaalideena wax lacag kama sameyno, waayo badankeenaba maba ogin in lacag laga sameeyo app-kan. Kaliya waxay u isticmaashaa Soomaalida isticmaasha app-kan badankooda entertainment ahaan, madadaalo iyo inay ku soo jiitaan shacab. Xaqiiqada u dambeysa aan ku soo koobaya ayaa waxay tahay app-kan waa sirdoon. Waa jaajus. Waa sirdoon u shaqeeya dalka China. Gabi ahaan dadka isticmaala taleefanada aan ahayn Android-ka, isla markaana ah iOS-ka uu ka mid yahay taleefanka iPhone-ka, waxay dalka China u sahlaysaa in ay ogaato xogta ku kaydsan taleefankaaga, maadaama aad isticmaalayso app-kan loo yaqaano TikTok. Dalka China waxay fursad u haysataa in ay ogaato taleefankaaga sirta ku kaydsan. Waa sababta ay u mucaarado dalka Amerika app-kan, gabi ahaanna ay uga soo horjeedo in la isticmaalo app-kan. Dad badan oo idinka mid ah ayaa isweydiiya, aaway apps-kii Musical Lie intuu aaday? Dhamaadkii 2017, shirkadda ByteDance ayaa la wareegtay aaladda Musical Lie, oo ahayd apps u shaqeeya sida TikTok. Isla markaana Musical Lie iyo TikTok waa la mideeyay, waxaana laga dhigay hal aalad, isla markaana leh hal maamul iyo hal sharci.
Asxaabta qiimaha badan, halkan ayaa kusoo koobaya fiidiyowgeena. Waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowgan. Mahadsanid. Qaybta hoose comments-kana waxaad inoogu reebi kartaa wixii dhiirigelin iyo faalaha. Fiidiyowgana like saar.